بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وأنا وناكسن أرضي من كسودوني ذيك جوكتان كسود وهذا عشرين أونلاين إن شاء الله وحنسيت توصل بلا بدونا مادة بيولوجيا 10 كواد كارهان فصل كفوم كأما chapter 1 إن شاء الله تعالى كبلا بدونا وحنكو قاون دونا إن شاء الله chapter 1 introduction to biology خردعة biology مركا وهرين وحن سويدين دونا سؤال introduction كبلونو and سؤال what's the biology طبعا محي biology way هذا biology وحلا يقنا is the state وبرشة of living organisms نولياشا نول living organisms نولياشا نول or أمبا is the state وبرشة of life knowledge and علميان لو يقانو biology waa cilmi kamida waa laan kamida laamaha sayniska waxaan loo yaqaanaa biology waa barashada nooleyaasha ama barashada nolosha wuxuu ka waramayo kaliya ama inta badan isagu ku tacalluqa waxyaabaha nool waxaan nooleyn isagu kama hadlo marka cilmiga ka hadla wax alla wixii nool oo dhan ayaa loo yaqaana biology haddaba kelmadan biology xagee bay ka timid imsa erey bay ka kooban tahay ereyada ay ka kooban tahay mid kasta macnaheedu muxuu yahay ayaynu insha Allah isdheegi doonaa waa su-aasha labaad in ka jawaabino where the term halkee bay ka timid ereyga of biology driver from xagee laga soo dhinaaniriyey ama xagee baa laga keenay where the term of biology driver from xageeba ereyga biology laga soo drive gareeyay ama laga soo dhiraandiriyay ama laga keenay biology ereyga biology is driver from waxa laga soo dhiraandiriyay ama laga keenay from two Greek words halkaas words maaha from two Greek words marka laba erey oo waxa weeye Greek ayaa laga keenay which is kuwaasoo kala macne labada erey waxay kala noqonayaan maxay bios means oo macnaheedu tahay life nolol and logos means iyo logos oo macnaheedu ay tahay the study barasho marka soo darteed the term ereyga biology can be divided waxaynu ku qeexi karnaa as the study of life barashada nolosha maana maadaama bios ay tahay life logosna ay tahay study waxaan odhan karnaa the study of life waa barashada nolosha marka ugu horeyn biology waa maxay xagee buu ka yimid ama waynu isla garanay intaas waxaynu uga gudbaynaa insha Allah laamaha biologyga ama branches of biology some of the major branches qaar kamida waxa weey laamaha ugu waaweyn of biology qaar waxa weey baa lagu zoology macnaheedu waa maxay is the study of barashada of animals xayawaanada cilmiga ku tacalluqa barashada xayawaanada ayaa loo yaqaan zoology waxa kaloo kamida laamaha biologyga botany is the study isaguna waxa weey barashada of plants dhirta waxa kaloo kamida microbiology is the study of barashada of microscopic organisms nooleyaasha ilma aragtiga ama nooleyaasha waxa weey aan la arki karin microscope lagu arki karo anatomy ayaa kamida is the study of barashada of internal structures qaab dhismeedyada gudaha of organisms nooleyaasha oo barashada qaab dhismeedyada nooleyaasha qaab dhismeedka iska leeyihiin waliba gudaha internalka barashada cilmiga ku tacalluqa ayaa loo yaqaanaa anatomy morphology ayaa kamid ah is the study of barashada of external structures qaab dhismeedka dibadeed ama dibadda or form ama qaabka of organisms nooleyaasha waxay iska soo horjeedaan marka anatomy iyo morphology iska soo horjeedaan physiology waa kamid ah is the study of barashada of the way habka in which kaas organisms nooleyaasha or parties of organisms ama qaybo kamida nooleyaashu function ay u shaqeeyaan qaabka ama habka ay nooleyaashu u shaqeeyaan ama qayb kamida nooleyaashu ay u shaqeeyaan ayaa loo yaqaanaa physiology
biochemistry baa kamid ah. Stage isaguna waa barashada of chemical reactions falgalada chemical oo karin ka dhacaya in organisms noolayaasha ka dhexdhacaya falgalada chemical ee noolayaasha ka dhexdhacaya ayaa loo yaqaanaa biochemistry. waxaa kaloo kamid ah embryology stage waa barashada of development koritaanka of animals xayawaanada from iyo ka tegaya yani ka bilaabmaya fertilization bacrimin to hatching oo dhigitaankii ama waxa weeye inuu dilaacidii yani inuu waxa weeye dilaaca beedkii tusaale ahaan beed ay ahayd inuu beedka dilaaco or beth amaba waxa weeye inuu dhasho oo waxa weeye tusaale sidii xoolihii oo kale xooluhu way dhalaan yani sida digaag oo kale iyaguna maxay uu haajin isagu dhigaa oo waxa weeye beed buu dhalay beedkaasu dhigaa beedkaasina marka ugu dambaysa waa maxay wuu dilaaca laakiin xooluhu iyagu waxay dhalaan nool dhammaystiran oo nool caadiya marka wixii nool caadiya dhammaystiran markaas dhala ayaa loo yaqaanaa beed ba isaga loo isticmaalaya wixii isagu inta beed dhalo beedkaasina dilaacana haaj baa loo isticmaalaya. Ecology ayaa kamid ah stage waa barashada of relationships xidhiidhada ka dhexeeya organisms noolayaasha to one another midba midka kale ay kooda xidhiidhaan ama xidhiidhka noolayaasha ka dhexeeya and their general surroundings iyo waa maxay deegaankooda guud surroundings means waa environment. Cytology waa kamid ah stage waa barashada of structure qaab dhismeedka of cells unugyada qaab dhismeedka ay leeyihiin barashadiisa cilmiga ku tacalluqa ayaa loo yaqaana cytology. waxaa kaloo kamid ah molecular biology stage waa barashada of chemicalada from which cells are made kuwaas ay noolayaasha unugyadu ay ka kooban waxaa la wixii chemicalisa ay unugyadu ka kooban ama cells ka kooban yihiin barashada la barto cilmiga ku tacalluqa ayaa loo yaqaanaa molecular biology. waxaa kaloo kamid ah geneticsku isagu waa cilmiga ka warramaya hidaha iyo raaca stage waa barashada of the way habka in which kaasoo the traits astaamaha of an individual yani astaamaha gaarka are transmitted loogu gudbiyo from one generation hal jiil to next hal jiil kale yani sida qaabka ama waxa weeye habka lagu gudbiyo astaamaha gaarka lagu gudbiyo jiil looga qaado yani one generation to generation kale loo gaarsiiyo yani generation kale loo gudbiyo marka saaran aabahaaba waxa weeye bidaara lahaa carruur fara badan buu dhalay adiguna carruur kala sii dhashay carruurtaadiba waxay sii raaceen awowga yani jiilba jiilka si dambe ayuu sii gudbinaya astaamaha saas oo kale. Taxonomy is the science waa barashada of classifying kala qaybinta organisms noolayaasha. Pathology waa kamid ah scientific study isaguna waa cilmiga oo barashada cilmiga of disease xanuunada ku tacalluqa aan abnormal structures iyo qaab dhismeedyada waa maxay aan caadiga ahayn aan functions iyo shaqooyinka symptoms iyo calaamadaha aan effects iyo saameynaha marka kale insha Allah taala intaas ayaa inoo hordhaci insha Allah taala ka qaadan doonaa caawa intaas ku joojin doonaa aad iyo aad baad mahadsantiin kulmi doonaa cashar mid lamid ah waxaan ka tegay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.